xafladan ayaa ahayd mid lagu sagootinayay 30 arday oo ka baxday dugsiga sare ee Sacaada oo deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ka heshay dalka Turkiga isla markaana qayb ka ah 320 arday oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay wadankaasi Turkiga. Mas'uuliyiin, waalidiin, maamulka dugsiga sare ee Sacaada iyo marti sharaf ayaa ka qayb galay munaasabadda, waxaana dadka munaasabadaasi ka hadlay ay baraarujiyeen ardayda deeqda waxbarasho u aadaysa wadanka Turkiga. فلله الحمد haddii aad hesheen oo ilaahay ku manaystay fursadaas in la beerdaray ma aha meel cid looga tago waxaa laga rabaa adiga Soomaaliina baxdid adiga Soomaalina soo noqotid fursadda adiga aad heshay ha khasaarin haddii aad khasaariso kow aad khasaarahay laba waxa khasaaraya waalidkaaga saddex waxa khasaaraya annaga oo reer banaadir oo inta fadhina afar waxa khasaaraya wadankii min xadaan bixiyay oo dad kala siin lahaa oo ka faa'iideysan lahaa marka waxa idin leeyahay qarasha kugu baxaya wax badan ma raba inaan kuu sheego qaboobihiina waa bilowday Turkiga haddii alla yiraahdo waxaan rabaa inaad dadaashaan. Gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee maamulka gobolka Banaadir Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir iyo xildhibaan Qaalid Macow oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ayaa la dardaarmay 30 arday ee ka baxday dugsiga sare ee Sacaada isla markaana deeqda waxbarasho ee heerka jaamacadeed u aadaya wadanka Turkiga. sida ogtihiin waxbarashada hadda ka baxdeen waxaa nidaamka dugsiga sare aad dhamayseen oo hadda uu sii gudbaysan jaamacadda macnaheedu ma ahan sidii hore ma ahan markii hore idinka wax la idin bari jiray laakiin jaamacadda macnaheedu waa ka duwanta jaamacadda waxa waaye adag isxilqaamayo adag wax isbarayo macnaheedu wuxuu ku kordhinaa ama professorku wuxuu ku kordhinaa oo kaliya khibradiisa oo takhasuskaas uu leeyahay laakiin dadaalka inta badan ardayga iskale inuu aado maktabada visionka dhalinyarada oo ay tilmaamayeen waxa way vision aan ku dhisnayn kala soociyo vision aan ku dhisnayn oday meel iyo ma aha dadkan reer banaadirka ma qaybsami karaan hal waaye nin kasto inaga midan waxa ku waajiba hadaa tartaan aqoon fiican dhaqan fiican maxaan ku taariikh fiican xadaarad fiican in la gaaro waxay ku imaan doontaa oo kaliya annagoo midoogno annagoo iskaashano annagoo wax wada qabsanayo ku imaan doontaa. Cabdullaahi Sheekh Maki maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sacaada ayaa ugu dambeyntii ka hadlay ardayda ka baxday dugsigaasi ee qaybta ka ah ardayda Soomaalida ee deeqda waxbarasho ee heerka jaamacadeed u aadaya wadanka Turkiga. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Maanta xafladan iyo munaasabadan aan isugu nimid waa munaasabad aan ku soo gootinayno arday waxbarasho ka heshay dalka Turkiga. Ardaydaasna waxay gaarayaan ilaa 320 arday gaarayaan. waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay u fududeeyo safarkoodaas ahdaafta ay u bixi doonaan insha Allah ay meesha u tagayaan oo ah waxbarashada 320kaas arday ka Sacaada ahaan waxaan anaga arday ahaan noogu jiro ilaa 30 arday ardaydaasna si gaar ah u bogaadinaynaa hadduu Ilaahay yiraah waxaan rajaynaynaa inay soo xaqiijin doonaan ahdaaftii loo diray oo ah inay waxbarashadii oo loo idmaday shaqada adag loo diray inay soo qabsan doonaan. Abdicasiis Ibrahim Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho.